السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارة الدمان سو دوادا عشان نداون سام مصطفى طاهر official صدح tobankii bishii lasoo dhaaftay waxaa dagaal dhex maray Iiraan iyo Israa'iil oo weerar ah waxayna duulaan ku ahayd barnaamijka nuclear-ka ee Iiraan oo iyadu isku dayaysa inay nuclear samaysato marka dagaalka markuu dhammaaday marka xaruntii Mareykanku asaga weeraray saddexdii xarumoodii waaweynaa ee Bardow iyo Natanz iyo Isfahan marka isagoo isticmaalaya diyaaradaha B2 duqeyntaa ka bacdi Iiraan dhowr walba ka soo baxay marka mar waxay tiri waa la burburiyey mar lama burburin shalay maalinta u dambeysana wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan wuxuu yiri uraniumtii macnaha la kobciyey waxaan geynay meel amni ah caas baa lagu saaraa waa burburtay dheheen awal laakiin hadda wuxuu tagay ma burburin meel baan dhigan laakiin arrinta liyaab kale waxay tahay wuxuu yiri Iiraan ba waxay tiri hubka nuclear-ka in la samaystaa waa xaaraan diinta islaamka marka waxa lala yaabay noqon diinta macnaha hooyadii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu lahaa carruurtiina bara legdanka iyo waranka sida loo tuuro iyo fardaha sida loogu dagaalamo inta badan in la baro laakiin ayagu waxay taagan yihiin waa xaaraan nuclear in la samaystay marka anigu isweydiin waxaan iri si xaaraan ku tahay laakiin waxaa la yaab leh in waxay rabaan ideolojiyadda in ka dhaadhiciyaan shucuubta caalamka oo aan muslimka ahayn in diinta islaamka oo aysan ogolayn in nuclear la samaysto yaa nuclear in la samaysto diinta islaamka ma ogola saasay reena dhahaan maxaa adigu ku tilmaami lahayd arrintaas kulli waa mari habaabin baa la yidhaha waxaas in iska dhigaan macnaha dad aan rabinba nuclear inay samaystaan laakiin way rabaan dhowr jeeraa laga fashiliyey cunaqabateynaa lagu soo rogay haddana waa la dhex joogay marka adii dhibaatooyin badan baa nimanka haysta marka waxaan dhihi lahayn kulli barnaamijkaas oo barnaamij la yaab leh sida macnaha la yaabka u taxa waaye uranium in nuclear inaan samaysan diinta islaamka ma ogola diinteena ma ogola ana gaaladaa laga gadayaa miyaa maxaa ku tilmaami lahayd adiga warkaas oo kale wax ka dheh gaalada muhiim barnaamijka horta intaasaan ku talagalaan kala hadlo qaalada xoogaa iska soo daadaahayaan insha allahu tacaala soo dadaalin haddii ilaah yidhi adinkuna meesha nimanba maandhowta waxay dhaheen subscribe maxaa laga wadaa subscribe waxaa laga wadaa bade rukun baa laga wadaa rukun noqon marka insha allahu tacaala aad waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu